بسم الله الرحمن الرحيم isla arinta wax yar oo kala laxday yar oo kale ayaan waxaan rabay inaan ku kabo dadku ma kala yaqaaniin waxna dadku badan wax ma akhriyaan laakiin dhagta wax laga maalaa waxa jirta wax badan in la isku khaldo hada su'aalo badan oo hada madaxweynaha la weydiinayo waxa kamid ah xukunka hada fulinta Aish qodobada dastuuriga 57 iyo 58 iyo 59 baan idin akhriyaa oo ku saabsan kala socnaanta iyo qaybaha dawladdu ay u qaybsanto 57 qaybaha dawladdu waxay u qaybsantaa saddex qaybood qaybta sharci dejinta waa golaha wakiilada qaybta fulinta golaha xukuumadda iyo qaybta garsoorka oo maxkamadaha dawladdu saddexda laamood bay u kala qaybsantaa qodobka 58aad kala socnaanta qaybaha dawladda qayb kasta waxay u madax bannaan tahay gudashada waajibaadyada xilalka iyo awoodaha dastuurka u jideeyay qaybina qayb kale ma hoos timaado marka laga reebo arrimo gaar ah oo dastuurku si cad u qeexay waa fahmaysaa banda Soomaaliya ku hadlaya baan malinaya waa faqradda koowaad faqradda labaad fulinta waajibaadka iyo xilalka qaybi leedahay qayb kale waa ka reebanta fiiriya si clear bay u qorantahay golaha xukuumaddu waa golihi fulinta wixii fulin ah ayaga iskale golaha sharci dejinta oo maxaan ku radaa baarlamaanka wixii sharci dejinta dalka ayaga iskale golaha garsoorka wixii garsoor ku saabsan ayaga iskale qaybina qayb kale shaqada ay leedahay uma hoos timaado faqradda saddexaad qofna xubin kama noqon karo isku mar wax ka badan hal qayb oo dawladda ka mid ah anoo xiraaliye guud baan shaqo kale kama qaban karo laamaha dawladda qof kasta oo dawladda u shaqeeyana waa sax shakhsi kasta oo dawladda ka mid ah saddexda laamood laba laamood kama wada shaqeyn kara hal laam buu ka shaqeyn karaa qodobka 59aad wada shaqeynta qaybaha dawladda iskaashiga iyo wada shaqeynta saddexda qaybood ee dawladdu waa waajib dastuuri ah taasna waa la fahmaya waxayna ku wada shaqeynayaan sida sharciga waafaqsan marka taasuna waxa weeye waa mid aan raba inaan idinku muujiyo waxa lala aadaa shaqadii garsoorka ayaa mararka qaarkood waxa lala aadaa wasaaradda cadaaladda sida halkan ku cadna saddexda hay'ad wasaaradda cadaaladda waxay ka mid tahay golaha fulinta marka wixii golaha fulinta ah wada shaqeyn dastuuriya oo waajib ah naga dhaxaysa saddexda hay'adood laakiin qolo walba waxay u madax bannaan tahay shaqada ay qabanayso oo dastuurka iyo shuruucda dalka ay siiyeen bay qabanaysaa